Assalaamu calaykum asxaabay soo dhowaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Dacda. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa libaaxii Daaqistaan iyo dagaalyahankii buuraleyda Qowqaas ee magaciisu ahaa Imaam Shaamil. Waana ninkii iska caabiyey boqortooyadii Ruushka oo ahayd boqortooyo awood ballaaran leh oo ka adkaadeen Beershiyaankii, sidoo kalena iska difaaceen boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Imaam Shaamil wuxuu hogaamiye ka ahaa kacdoon socday in ka badan 25 sano, kaasoo uu kaga soo horjeeday boqortooyadii Ruushka, waxaana taageero weyn siin jiray dowladdii Cusmaaniyiinta iyo qabaa'ilkii deganaa mandaqadda Qowqaas. Qowqaas waa mandaqad siyaasadeed oo ay wadaagaan waddamo aad u badani, waxa ay ku taalaa xuduudda u dhaxaysa Yurub iyo Aasiya, waxaana ku yaala buuraha caanka ah ee Qowqaas. Badanaa waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah Qowqaasta Bari iyo Qowqaasta Galbeed. Imaam Shaamil dhulkaas ayuu ku dagaalami jiray, waana mid ka mid ah dagaalyahanadii ugu weynaa abid ee taariikhda soo mara. Wuxuu dhashay 1779 miilaadiga, wuxuuna ka dhashay qoyska Aafaar ee xaafadda Qimri ee buuraleyda Daaqistaan. 20 jir markuu gaaray ayuu u safray dalka Suuriya, halkaas ayuuna ka soo bartay diinta Islaamka iyo cilmi badan oo diini ah. Markuu ku soo laabtay Daaqistaan ayuu ku biiray dagaal loogu soo horjeeday Ruushka, maadaama boqortooyadii Ruushka ay doonaysay inay isku ballaariso mandaqadda Qowqaas. Sheekh Shaamil dhowr dagaal ayuu la galay Ruushka, ilaa markii dambe ay dhaawacyo waaweyn ka soo gaareen dagaalkii Qimri sannadkii 1832. 2 sano kadib 1834, markuu Imaam Shaamil ka soo kabsaday dhaawacyadii soo gaareen, ayaa loo magacaabay imaamka iyo hogaamiyaha ciidankii Daaqistaan. Sababta lagu doortayna waxay ahayd inuu ahaa qof dheer oo leh jir dhisan, buuraleyda Daaqistaanna ku dagaalami kara, sidoo kalena uu yahay aqoon-yahan si fiican u yaqaana diinta Islaamka. Markii uu noqday hogaamiyaha ciidankii Daaqistaan, wuxuu ku guulaystay inuu mideeyo dhammaan muslimiintii Qowqaas ku noolaa, wuxuuna ka dhigay hal ciidan oo ku midaysan dhisidda dowlad Islaami ah. Wuxuu dadkii geliyey rajo ah inay Qowqaas noqoto dowlad Islaami ah oo madax bannaan, sidoo kalena ay hesho nabaddii ay muddada dheer sugayeen. Sidoo kalena wuxuu ku guulaystay inuu saxo xumihii ay samayn jireen qaar ka mid ah bulshadii Qowqaas, wuxuuna dadkiisa ka dhigay kuwo diinta Islaamka ka shidaal qaata oo si fiican ugu dhaqma. Laga soo bilaabo 1834 ilaa 1859, wuxuu si isdaba joog ah isaga caawin jiray ciidamadii Ruushka oo dagaallo waaweyn ku dhex mari jiray buuraha Qowqaas. Weerarkiisa iyo inuu ka horjoogsaday inay boqortooyadii weyneyd ee Ruushka isku ballaariso mandaqadda Qowqaas ayaa si dhaqsi leh dunida ugu faafeen. Muddo yar ayuuna si dhaqsi leh caan ugu noqday geesinimadiisii iyo dhaqan wanaaggiisa. Wuxuu ahaa qof aan isdhiibin, hase yeeshee 1859 ayaa awooddiisa hoos u dhacday. Sababtana waxay ahayd isku dhacyada qabaa'ilkii taageerada weyn u muujin jiray. Ugu dambayntiina waa la qabtay, wuxuuna maxbuus u noqday ciidankii Ruushka, waxayna ku xukumeen 10 sano oo musaafiriin ah, laakiin waxay u oggolaadeen
inuu soo xajiyo, waxayna ahayd markii labaad uu xajinayo intuu noolaa. Xajkiisii markuu dhammaystay ayuu booqasho ku tagay magaalada Madiina, ugu dambayntiina meesha ayuu ku geeriyooday taariikhda markay ahayd 1871 asagoo da'diisu ay tahay 92 sano jir. Waxaa lagu aasay qubuuraha Baqiic ee magaalada Madiina, halkaas oo ay ku aasan yihiin qaar badan oo ka mid ah qoyskii iyo saxaabadii Nebigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Ilaahay ha u naxariisto Imaam Shaamil, sheekadiisana ka yeelo mid dhaxal u noqota dhammaan muslimiinta adduunka ku nool.